وعنا wanaagsan dhamaan ba asxaabtayda sharafta badan sida tooskaan oo kala dhageysanaya hawada ku soo dhawaada Shaahid Media dhawaan waxa ku geeriyooday caasimada deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya gacanta ku haysa jigjiga gudomiyaha Khartoum State ahna ra'iisul wasaarihi hore ee Soomaaliya Khalif galeed hadaba khadka telefoonka waxaanu kula xiriirnay faysal waraabe gudomiyaha xisbiga uccid oo ahaa asxaabta ugu dhaweyd siyaasiyiinta Soomaaliland ee marxuumka geeriyooday soo dhawow mudane faysal soo dhawaad mahadsantiin waxa la leeyahay waxa geeriyooday gudoomiye maxaa la oran jiray Khalif galeed ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ee unaxaristo jannaha ka waraabiya caasimada jigjiga ayuu ku geeriyooday maxaad ka warhaysaan dhinaca Soomaaliland hadii aad tihiin dadka lama leh uu geeriyooday professorka kullu nafsi daaqatu noot wala gama ilaahay unaxaristo inagana samariga ilaahay naga siiyo ilaahay jannada ka waraabiyo دواء أنو على ده هل كان بقول بكتوي لا متصل بحصنا ولا فيه شيء كلون قال سلمان هذه خاطمة شيء يعني قال يا ويلي وحنا نسمع في صون غلا هراء وحقي بايني إن حق قدومي ورد إسخلاف سن أيها كسب حياة جريدة على خليف قليد حكم يا كهاي ساندينكو جريدة سيابها وجريدة والله ما هو أنا استشهد بابا نقول نقولي شلي تا ما كنت هاي كذي يبصر عمان شفتني أيام تلفون كيسي تودي عن دري ما كان قد دري قف بقى قطعي قف كمان كذي والمعنى هم تلفون كان يكبر بس على خليف ما على خليف أول إنتون بيجي ولا مقارنة وعي وحنا وراه هاي وعي أنا وحنا بيجون فايس على وراه هاي أول إنتون بيجي أكيد يصل عمان تريها ما كان ورتا ده أنا كنت وحنا نقول نقطون dhimasho mutaqabbil abin ugu noqotay ilaahna ha naxariisto markiiba bade aanu ogaanay dhintana madaxweynuhu waa la shir baa la qabsaday waa laga sheegay madaxweynaha wasiiradu waxa la diyaar gareeyay magaalada saayay ambalaaska iyo dhakhaatiirta soo qaadi lahaa sidii loo soo qaadi lahaa la taabashadii la galay kabacdi waxa la yidhi markii la hadleen dowladda xilka shanaad aynu sidna eheladii ayaa ay weydiin halka lagu aasay jecelihiin halkaas markaa arrintu ahayn waa la siyaasadeeyay ayay dad fara badan leeyihiin gaar ahaan waxaa hadlay garaadka guud ee gobolka Sool waxaanu yidhi cali tusaale uu soo qaatay maxamed ibraahim cigaal waxa uu ku geeriyooday Pretoria waxa lagu aasay berbera oo gurigiisa xasan abshir waxa uu ku geeriyooday dalka Turkiga waxa lagu aasay Garowe maxay tahay sababta loogu qaadayo meydka dhinaca Muqdisho ayay dad badan isweydiinayaan هذا الواحد ويا مقدسه واحد ويا تميس ومركا دولكو دان لو ويديعay harkii oo magaalada waddan bayn jeclaan lahaa waxa muqdisho aad ninkaas uu ka soo qoostay ma jeclaan wixiisu jeclaa federaaskan si sax ku hadlay waxa in qofka sameeyay lagu aaso ayaheed laakiin waxa jira dad inka wax kasta qabiyaaladna ka eegiya iyo siyaasad oo magaalada aan arxankii iyo wanaagii iyo fahamkii ka tagay ayaa jira oo markaa imika isticmaalaan maamulka muqdisho laga meesha fadhiya oo cudur qabyaalad ku jirto ayaa markaa magac nasita been ah oo ah madaxweyne iyo dowlad Soomaaliyeed oo jirin oo dadku kala wada hayaamay marka waa macquul garaadku arrintiisa waa in lagu aasaas caanood magaaladiisii وحرمتيسي إذا لو حلو آسف بردرة إن عبشر حلو آسف جروي صبح مش اللي وجيه وحنا أركان الكلام ده غير آسيا في الجدين يلا جدين يورسيا صلاة أي تدين يعني إنما كان ما يسحب كذا قدومي فيصل على خليف قليد الله نحرسته وحوها قدوميه خاتم ستيت waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii heshiiskii lala galay dhinaca Soomaaliland isku soo dhaweyntooda ka shaqeynayay muddo dheer Khalif waxa uu ku celcelinayay waxaan u baahanahay Soomaaliland wala wada leeyahay waxaan u cuskanayay dastuurka Soomaaliland in dib loo furo sheekadii ma sidaas un baa lagu dhaafayaa maadaama uu hogaamiyihii Khartoum geeriyooday mise waxa suurtagal ah in heshiiska halkii laga sii anbaqaado horta Soomaaliland wala wada leeyahay oo dastuurka sheegaya oo taariikhda sheegaysa إن سومالان بيريه إلا اللي إحنا كنا في كوريا وضلها حق سمن أوليين فهذا المجلس كمر مياه معها لكن واحد جبت من الآن كود أوكيو ممكن من الآن كود أطلع قبته لقوا إنه
iyo qabyaalad iyo magaranaysaay garbisasho laga waayi maayo marka waan la qabnaa inay somaliland magaranaysaay sida loo qaybiyo awoodda dhaqaalaha iyo magaranaysaay wadalahaanshaaba aana dee silmeyn ilaahay baa wax sini kale subxaana watacaala marka aan wuxuu doonayo waxa anaguba aan doonino oo anagu xusbi ahaan aan ku dhawaaqno war dadku ha u silnaado yaan loo eegin qabiil yaan loo eegin magaranaysaay abtirsimo waa ina qofka awoodiisa iyo dhaqankiisa iyo iimaankiisa wax lagu sameeyaa bulshaduna magaranaysa ay wada gaadhaa khayraadka dalku taasuu doonayey wan iska mis markay timaado distoorka waa la furayaa annaga inaa la furo 2013 baan soo jeedinay markaan aan sameynay ururka madasha la idhaa waxaan doonaya aanu review garayno dib u baadno maxaa ka xun maxaa inaga wanaagsanaa maxaan bedelaa iyadana way jirtaa laakiin wixii uu doonyahay ma ahayn wuxuu isagu shacab u talanayo amba uu doonayo shacab loo talo beeshiisa wuxuu doonayo in wax wanaagsan oo la wada leeyahay oo loo dhigay la sameeyo tina waan wadnaa insha Allah taala gudoomiye siyaasiyiin badan oo Soomaaliland ka soo jeeda waxay aaminsan yihiin oo ay ku doodaan waliba meelaha fagaarayaasha markay yimaadaan Soomaaliland in la wada leeyahay laakiin dadka Khaatuma State iyo beelaha darafyadu waxa ay doonayaan isaaq la wada leeyahay sidaas ay hadalka u dhigayaan rabbi subhanahu wa ta'ala isaaq waa majority oo meel kasta marka aragtid marka waxa la qaadiyo majority-gu waxa laga yaabaa inay dadka kala ka badsadaan laakiin waxa weeye waa in la isku balance gareeyaa laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala majority meeshu dhigo majority kulli waa arkaysaa in majority-gu had iyo goor ka kuraasi badanayaan marka wadna la yidhaaho waa arkaysaa laakiin Somaliland maaha distoorkeega iyo dadkeega kumama samaysna magaranaysaay barafaad iyo dhex iyo dhaqo waxa soo saaran dadkan solution maamulka kulba wasiir madaxweynaha jooga laakiin anagu waan isku wanaagsanaa isaaqdeen maaha dhex maaha ilaa la soo agtay dagaa yani waa waxyaalaha qaarka sheegay soo iyo sanaag wala wada dagaa isaaqama hadna hada waxa soo dhan dulqaadku sameeyo gudoomiye waxa weeye maamulka xun eeg qofka markuu xisbiga uu qabto awoodda qaladaadku sameeyo maaha in reer loo saaro qaladaad muuse sameeyo maaha qaladaad isaaq sameeyey waa qaladaad uu shakhsi sameeyey xisbi sameeyey marka aynu reerkan la cabaarayo waa ceeb waxay ka mid tahay yani ceebta Soomaaliya ka mid tahay ugu dambeyn gudoomiye waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aal ka baxsan geerida Cali Khalif ilaahay unaxariiste gudoomiyaha xisbiga uccid baa tahay muddo dheerna musharax ayaad 3 jeer soo noqotay dad badani waxa ay leeyihiin gudoomiyaha xisbiga uccid faysal cali waraabe ahna mulkiilaha xisbiga uccid taa maxaad uga jawaabaysaa adan waa aqal xumo founder baan ahay la malihi qofka soo founder waa jiriya nidaamka hadday tahay in hadday company tahay hadday shirkada tahay intuu founder wey siyaasadda waxaan u galaan waxa weeyaan dalkan aan fikradeyda iyo aragtideyda ka fuliya wayna maan gaarin magaranaysaay himilada aan u galay siyaasadda Somaliland xor ah la ictiraafsan yahay cadaalad ku shaqaynaysa kitaabka leeyahay sunnaha rasuulka ku shaqaynaysa taas waa sina objectives kiina weli maan gaarin intan marka afurada nafta ilaahay dan soo sharaxaya in dalkayga aan state ummadda u sameeyo wadaas aan waxaan carruurtayda waa ini aan eri qaran baan ii sameynaya ilaahay baan ka tegaya in carruurtayda ka Finland arrinta way socota marka qof mangaab ah su-aashiisa iyo hadalkiisa lama soo qaato mahadsanid gudoomiyaha xisbiga uccid ee Somaliland hogaamiye faysal cali waraabe kana mid ah siyaasiyiinta ay isugu dhawaayeen Allah u naxariistay Cali Khalif galeed oo aan wax ka weydiinay geerida Cali Khalif galeed asad idaajaa baan ay from Addis Ababa mahadsanid gudoomiye